mas-uuliyiinta sarsare ee xisbiga wadani ee gobolka Togdheer oo saaka warbaahinta kula hadlayay xafiiska xisbiga wadani ee gobolka Togdheer ayaa cambaareeyay xadhiga lagula kacay wariyaal ka tirsan warbaahinta maalintii shalay ahayd ciidamada Soomaaliland ay u taxaabeen xabsiga. mas-uuliyiinta xisbiga wadani ee gobolka Togdheer ayaa xadhigaasi ku tilmaamay mid xaaraan ah isla markaasina aan sifo sharci ah xukuumaddu u soo marin. geesta kale mas-uuliyiintani ayaa wax laga xumaado ku tilmaamay in xukuumadda hoggaanka uu ka yahay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ay musuqmaasuq kula kacdo ardayda barnaamijka shaqo qaran ee loogu talagalay inay ka howlgalaan shirkad laga leeyahay waddanka Singapore. waa bulshada iyo ummaddu halka iska gaadha waa media haddii media la caburiyana waxay u muuqataa in shuruucda qaranka lagu tumanayo oo kaalinta afraad marka waxaan leeyahay xorriyadoodii si dhaqsaal lagu soo celiyo batrina waliba xubnaa hadii jeer dhacdooyinka dalka dhacay tacadiga ka hadla marka xuquuqda loo soo celiyo gacan faraha laga qaadan leeyahay waxa kale aan cambaaraynayaa shaqo qarantii barnaamijkii ka socday Hargeysa war xamar baynu kula culuwnay wax walba aniga leh gobolada waqooyi hadaynu nahay Soomaaliland iyo koonfur waxayna dhex maray colaadii ugu badnay wax walba xamar baalqday si leeynoo lahaa ayuu halgalkii ku galay war Hargeysana xamar kale noqotay Hargeysana meeynu ka go'naa wax walba Hargeysa leh 400 in lagu qabtaa waa xaraan baan imtixaankooda gobol walba waxa inta la qaybiyo in koota loo xiro gobol walba si soo tartamo oo gudihooda ay ku tartamaan oo burca waxay leedahay boorma waxay leedahay gabiile waxay leedahay laascaanood waxay leedahay caynabi waxay leedahay gobol walba wixii uu isaga inta loo qaybiyo gobolada Soomaaliland oo gobol walba shaqo qarantiisu ay ku tartantaa ma dhalinyariisu ay ku tartantaa baa war wax walba Hargeysa la qaadan kari mayno idii halka la idinka go'aysay taagan tiray Hargeysa ama qaranka wax u qaybiyaan madaxweyne tiyaama inaguna aynu Hargeysa ka go'no ilaa xamar bas aynu uga go'nay saas un baa sababtu taana waan cambaaraynaya xaraan baan ahayd imkana in lagu qabtaa waa xaraan gobol walba koota lagu xidho lagu soo celiyo taankiisi kalmad kale waxaan uga faa'iideysanayaa media imka waqtigan aynu la joogno iyadoo xadhiga mar dambana cambaaraynaya mar walbana aan raalli ka ahayn xusbi ahaan saxafiyiintan la caburiyo saxaafadan la caburiyo war dhaqaale waddanka wasiirkan maaliyadda uu dumiyo cashuuro kordhina iyo cashuuro toos ah oo uu qaadaya maaha waxaanu bislaanay inuu gaarnayba dawladaha caydha bixiyay soo tira kooba ee bulshada wax ku celiya lacagta tooska cashuura tooska qaada dal qaadi karana ma nihin dal dhaqaalihiisa leeyahay ma nihin iyadoo markii hore $120 ay mahdeen sarfiyadu haddana intii yarada isku soo hadhadhay cashuur toosan qaadaya soo raaciya leydhka iyo soo raaciya telefoonka waxaynu qaadi karaan ma macayd baad bixinaysaa oo lacagtii inta bil amalka aad ku soo celinaysaa bulshirka maaliyadda saxaafadda idinka ay weydiiyay baan leeyahay waxaana taan imikana ay maraysaaba in iyadoo imtixaan la galay oo dad imtixaan ugu jiraan in maxaan ku raahdaa qaybo kale oo garab area inta la yiri imtixaan bay soo galayaan dabeetna hadhowta la doonay kii imtixaanka saxda ah ku jiray ee u soo jabay ee maxaan ku raahdaa Mandheera iyo tababarka uu soo qaatay la yiraahdo halkaagii waxa gelaya maxaan ku raahdaa ninka ka dulgeliska ah wariyaashiis yiri markaa hawshaas bal dadka iyo shacabka u soo bandhiga waayo saxaafaddu waxay leedahay xorriyatul qowl bay leedahay waxay dadka u soo tabisaa kolba wixii jira dawladda nimanka joogtay xukuumadda nimanka joogtaana waxaad moodaa in xaalkeedu uu yahay oo hawsheeduba ay tahay carjuuqdhe iyo car hadal oo suxufigii la xidhayo oo kii caqligiisa iyo maxaan ku raahdaa fikirkiisa ku hadla la xidhayo oo dabeetana arrinkeedu way noqday xabsi iyo xadhig waxaasina waxayna wadaya maaha waana caadooyinka lagu yaqaano xukuumadda militariga ee sii degdegaya ama maxaan ku raahdaa qarka u saaran inay saaxadda ka sii baxaan tan iyo intii xukunka dalka uu la wareegay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi waxaa soo badanaya xadhiga lagula kaco warbaahinta kala duwan ee ka howlgasha Soomaaliland. Shucayb Xasan Cismaan, Shucayb Kingish, telefishinka caalamiga ee Sahan, magaalada Burco.